ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Zaylaci baa ka mid ahaa madaxweynaha hadda talada haya Muuse Biixi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa Maxamuud Xaashi waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdullaahi Omar oo markii dambe noqday wasiirka arrimaha dibadda waxaa ka mid ahaa Xirsi oo markii noqday wasiirka madaxtooyada waxaa ka mid ahaa marwada madaxweynaha oo iyadana goobjoog ahayd rag badan oo saxaafadda ka socday sida Farxaan Xaaji Cali oo kaleeto iyo milkiilaha Holkeem G2A nasiib darro uu ka soo degi karo waa Soomaaliland waxay ahayd inuu dhammaadkii sanadkii hore uu berbera soo gaadho hase yeeshee Jabuuti waa ixtiraamaya dad shaqaystay oo madaxweyne fiican leh siyaasaddiisa iyo sidoo dadkiisa u dhaqayo waa ku ixtiraamaya adeer oo waa ku maadsan yahay laakiin inay badaydu saa ahaato berberi nooca ahaato inagoo le berbera dee kuma faraxsan adeer kuma faraxsan ilaa heer bay gaarsiisantahay si dawladuhu u ilaaliyaan markay suuqa xorta ka shaqeeyaan ma aha oo kaliya in laga hortagayo in qof loo xidho ama koox loo xidho ama ganacsi loo xidho adeeg ama nooc ganacsi wax soo saar ganacsi xitaa wax mamnuuca in cid hal adeeg wada bixinaysa ay isku biirto Jabuutina waa la leeyay halkaan waa tagay wax la leeyay guri kale oo kala leeg oo qolo walba meesheedu ku xidhan tahay Ethiopia ugu xidhan tahay Afrikada kale oo ugu soo xidhan tahay Suudaan ugu soo xidhan tahay yaani mid walba khadka uu leeyahay ayaa loo qolka aniga waxa la samid banaan maaliga soo xol ku xidhan oo waa kan waa kii Somaliland iyo fiber optic-goodu safarada aanu ku baadigoobayno caddaymaha iyo shakhsiyaadka xaqiiqada xogtani khusayso oo isla raadintooda iyo meelaha ay ku kala nool yihiin waqti badan naga qaadatay aan horta idinla wadaago taariikhda iyo meertada isgaarsiinta fiber optic ee Soomaaliland sidaan hore u soo sheegnay kadib kolkii la go'aansaday in Afrika dalalkaasi ka midka ah la gaarsiiyo adeega internetka badda hoos mara waxaa samaysmay in adeegaasi ay ku bahoobaan sharaa'ig caalami ah kuwaasi oo ku midaysan ama ku bahoobay magaca East ama East Africa Submarine System shirkadda loogu yeedho magaceeda Delcom waxay ka mid ahayd shirkadii ku bahoobay East ee xadhkahaasi fiber optic u qoondeeyay in magaalada berbera noqoto stationka ama saldhigga fiber optic ee bariga Afrika dhammaadkii sanadkii 2004 ayaa shirkaddii Delcom bilowday qorshahaasi lagu doonayay in Somaliland oo leh xeeb dheer laga hirgeliyo isgaarsiinta fiber optic ayna xarun isgaarsiineed ama xarunta ICT-ga ay u noqoto magaalo xeebeedda berbera taasi waxay ahayd fursad weyn oo qiimo iyo ahmiyad xooggan u samaynaysay Somaliland guud ahaanteed gaar ahaanna waxay magaalo xeebeedda berbera ka dhigaysay xarun weyn oo wax ku ool u ah horumarka isgaarsiinta ganacsiga iyo xiriirka Afrika iyo adduunyadaba si dhowna u caawinaysay tayaynta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo ganacsiga Somaliland xilligaasi xukuumaddii ka arriminaysay Somaliland oo madaxweyne ka ah Daahir Rayaale Kaahin ayaa soo dhaweeyay fikirkaasi shirkadda Delcom ee ka mid ahayd sharaa'igga East isagoo u arkayay faa'iido mug leh oo u soo hooyatay Somaliland sidaas darteedna ogolaansho buuxa oo kalsooni leh ku ogolaaday in Delcom ay hawshaasi fuliso iyadoon wax koota ah loogu xidhin adeegaasi iyadoo laga duulayo dastuurka Somaliland oo kootada xaaraantimeeyay
sidaasi ayaa shirkaddii dalcom ku bilowday mashruucii hirgelinta barnaamijka fiber optic waxayna waday ilaa iyo bartamihii sannadkii 2010 halkaasi goortay maraysay ayaa waxaa ka hor yimi caqabadihii caqliga fayoobi aanu qaadan karin kolka dib loo raaco taasoo qayb ka ah waxa aynu ugu yeedhnay dagaalkii dhaqaale iyo siyaasadeed ee berbera ka dhigay bogcad ayaan daran oo laga hiiliyey waxaannu ugu horrayn raadinay sharciyaddii madaxweyne daahir riyaale somalilan ugu oggolaaday in wakhtigaasi adeegga isgaadhsiinta fiber optic u ka hana qaado tani waa ruqsaddii madaxweyne riyaale siiyey shirkaddii delcom oo sida kuu muuqata ay ku xusan tahay magaceeda somalilan delcom tan kale waa warqaddii wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta oo uu ku saxeexan yahay wasiirkii boosaha iyo isgaadhsiinta ee wakhtigaasi mudane aadami kuwanina waa waraaqihii cashuuraha shirkaddaasi ku bixisay helitaanka caddaymahaasi kadib waxaannu tagnay dhismaha isteeshankii berbera laga dhisay ee shirkaddaasi doonaysay inuu noqdo midka ugu weyn bariga afrika inkastoo dhismuhu leeyahay qaybo undergarowna ama dhulka hoostiisa oo aysan noo suurtagelin inaannu gudaha u gallo haddana cagta waxaannu soo dhignay halkuu kaga yaallo xeebta berbera intaasi kadib waxaannu gudagallay raadinta madaxii ugu sarreeyey shirkaddii delcom somalilan maxamed axmed jaamac waxaan raadinay taleefankiisii kolkaannu la samaynay xidhiidh ee aannu khadka taleefanka ku helay wuxuuna noo sheegay inuu 3 maalmood kadib magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya imaan doono isla markaana joogi doono iyada lafteeda wakhti aad u kooban inaannu muqdisho ugu nimaadno ayaannu door bidnay waa habeennimo abbaara 11 badhkii waxaa suurta galay inaannu hello kana qaadno waraysigan mas-uulkii aannu maalmaha badan raadinayno waraysigan oo isagu sal u ah qaabkii ay ku suurta gashay in berbera laga baajiyo fursaddii u horraysay ee ka dhigi lahayd aqalkii tiknoolajiyadda geeska afrika sida aan xasuusto waxay igu dhalatay 2004 markii aan qorsheeyey inaan dhiso 2 maxadadood oo qaybiya internetka kaas oo ugu talagalay maxadada koowaad inay noqoto magaalada berbera mudday qaadatay in fikirkaas loo bedelo ama la dhaqangeliyo waayo ficil ahaantiisu ma sahlanayn mid la dhiso tiknoolajiyad oo qaali ahayd shaqada loo baahnaa oo mid aad u culus ahayd maalgelinta loo baahnaa oo mid iyadana aan aad u sahlanayn ahayd marka berbera waan bilaabay shaqadeedii 2004 akhirkiina qorsheygu wuxuu ahaa in 2010 aan dhammaystiro isaga uu ay shaqada berbera ay ka dhiman tahay muddo 60 casha dhismihii stationka waa la dhammaystiray oo markaa wuxuu ku dhowaa ama gabaabsiba waxaa dhammaystirkiisa qalabkii la dhigi lahaa oo dhan waxay soo saarnaayeen maraakiibtii lagu soo raray waxaana la sugayay bilo gudahood 60 cisho gudahood inay hawshaa ku dhammaato nasiib darro siilaanyo 2 usbuuc dooran oo aan weli xilkii la wareegin ayaa habeen gurigiisa noogu yeeray na weydiistayna aniga iyo nimankii caddaanka ahaa ee shaqada ila waday in aan fadhi la qaadano wuxuuna noo sheegay arrinta uu noogu yeeray inay tahay xilli kala guur ah oo dowladdii horena ay xilka wareejinayso dowladda cusubna ay xilka la wareegi doonto wuxuu naga codsaday in aan hakad gelino
mashruuca aan wadno muddadan kala guurka macno waa noo samayn weyday inaanu joojino shaqo socota dood dheer ayaanu la galnay madaxweynaha gurigiisa annagoo fadhina waxaanu sheegnay horumarka iyo faa'iidada aanu doonayno inaan dalka kusoo kordhinayno waxaanu sheegnay sida aan rabno mujtamacan inaan wax badan uga bedelno waxaanu sheegnay tiknoolajiyadda aan keenayno waxaanu sheegnay hay-adaha aan la kaashanayno maalgelinta intaas la eg ee aan waddanka keenayno waxaan u sheegnay shaqo abuurka iyo aakhirkii shaqadan markaanu dhammaystirno masaalixda weyn ee shacabka reer somalilan ay ka heli doonaan mashruucaanayto leh la dhisayo sidaa waxaa muuqatay inuu madaxweynuhu uusan waxaasoo dhan u dhaganuglaynba ama oon dhegaysanaynba nin yara meel ku qafilan tala meel iga soo go'day ayuu u ekaa markaan la doodno oon ku niri bal war annagu dad ganacsatahaanu nahay dhisaya shaqo horumar waddanka u keenaysa wuxuu ka fuqi waayey ama uu ku dhegayba bal intaa yartahay kala guurkaana wax walba idiin dhammaynaya bal isuga madaxweynaha markuu idin yeedhay siilaanyey adiga iyo injineeradii caddaanka ahaa ajnabigii ma keligii baa la kulanteen mise kulanka cid ba idinku wehelisay maya markaas shirkaa waxaa ka soo qayb galay madaxdii ugu sarreysay xisbigii kulmiye oo la oran karo waxay ahaayeen rugcadaagii siyaasadda ee xisbigaas kulmiye talada raggaas waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Zaylici baa ka mid ahaa madaxweynaha hadda talada haya Muuse Biixi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa Maxamuud Xaashi waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdullaahi Omar oo markii dambe noqday wasiirka arrimaha dibadda waxaa ka mid ahaa Xirsi oo markii noqday wasiirka madaxtooyada waxaa ka mid ahaa marwada madaxweynaha oo iyadana goobjoog ahayd oo shirkaasayto khidmad wanaagsanna ka samaysay markii gogasha la isugu yimid dhinaca iyagana waxaa ka socday injineeradii farsamo yaqaanada oo dhan faransiis iyo ingiriis iyo jinsiyado fara badan isugu jiray afrikaan iyo soomaali kaloo injineera waxaa kala socday maaragtay odayaashii dhaqanka ee magaalada Berbera sida Caaqil Sadiiq oo kaleeto rag badan oo saxaafadda ka socday sida Farxaan Xaaji Cali oo kaleeto iyo Milkila Holkeem raggaas oo dhan baa marka waxa waaye gogasha fadhiyay oo meel qarsoodiya ma ahayn imise casho ayuu madaxweyne siilaanya waqtiga idin qabtay markuu leeyahay anaa hawsha idin dhameeyay 30 casho ayuu dalbaday 30 maalmood wuxuu yiri aniga idin yeeraya wax idinka halaabay doonaa ma jiraan wax walbana si fiican way ku dhamaan doontaa marka waxaad yeelaysaan igu sharfa xilliga kala guurka in aad fursad yar siisaan waanu sharafnay madaxweynihii waa soo dhaweynay waxaanan u sheegnay inaan taladiisii qaadanay maadaama hadda aanu doonin annaga iyo isaga markaa inaanu isku hor nimaadno laakiin madaxweynuhu waa nooga baxay ballantii soddonkii casho wuu dhammaaday waxay ahayd inuu warqad martiqaada aniga iyo injineeradii shaqada ila waday uu dib ugu soo diro ma uusan soo dirin mana dhicin inuu soo diro markii la gaaray muddo 60 casho oo aanu jawaab ka weynay ayaan anigu warqad u qoray warqadaasaan u diray oon leeyahay madaxweyne waataanu sidaa ku ballanay maxaa caqabada oo hortaagan inaan shaqadaydii dhammaystiro madaxweynuhu jawaab uu soo diray isagoo soo marinaya xogeyntiisii gaarka ahayd Xirsi oo la leeyahay warqadaadii aad soo dirtay waanu helnay laakiin si aan go'aan uga gaarno martiqaad aan kugu fidino waxaan kaaga baahannahay sharciyadda aad u haysato inaad dhisto keebalka kale markabkii dhisayana markaasuu badda ku soo jiraa wuxuuna u soo socdaa inuu ku xirto dekadda Berbera shaqadana ka bilaaba injineeradii hore dhaca u ahaa oo u diyaar garoobi lahaa ama diyaarin lahaa hawsha laga qaban lahaa markabkaasna waa kuwii Berbera joogay oo siilaanyo shaqada ka joojiyay
madaxweynihii markaa warqadda markana loo soo diray oo uu leeyahay bal ii soo caddeeya milkiyadiinni iyo waxaad haysataan ayaanu u jawaabnay oon ku niri de sidaas sharciyadda waa tanaa xuquuqdaydu waa tanaa wax walba dowladdu naga rabtay iyo kulli intaasoo lacagi waxay oo dhan baan u dirnay muddo ka bacdi ayaa madaxweynuhu noo soo jawaabay jawaabtu uuna siiyana waxay ahayd 3 su'aalood buu na soo weydiiyey su'aasha ugu horeysa sharciyadiina soo gudbiya tartan baa la gelayaa dib baana loogu noqonayaa wixii sharciyadii hore loo bixiyey maalintii dambana madaxweynuhu digreet ayuu soo saaray oo uu leeyahay mashruucii cableka waxaanu siinay shirkadda Somcable warqadda aad hadda xusayso qoraalkeeda waxaa iska lahaa Dr. Axmed Xaashi Nuur wasiirka dambe oo xilkii kala wareegay ama lagu bedelay wasiir Cabdirasaaq warqadaasayto wuxuu u qoray shirkadda ama bahdii isgaarsiinta Easy Cable wuxuu kaloo wargelin siiyey general managerkii Djibouti Telecom oo ku wargeliyey oo uu leeyahay ilaa haddana ma aqaan sabab uu ugu wargelinayo waayo Djibouti Telecom waxay ahayd shirkad aanu iskula jirnay consortiumka Easy shirkadaha bahdaas isku kaashatay inay dhisato keebalada saamiga ay ku lahaayeen Djibouti Telecom mid leeg ayaa shirkadda Dalcomna ay ku lahayd marka niman wada shaqayn ay ka dhaxayso ayay ahayn Djibouti Telecom wuxuu markaa wasiirku warqadiisaasayto uu ku qoray wuxuu xusay inay horta ujeedada warqadaanayto loo qorayaa inay tahay arrinta ku saabsan shirkadda Dalcom wuxuuna ku tilmaamay inaysan shirkadda Dalcom haysan wax xuquuq ah ay uga shaqayso geyga Soomaaliland dhab ahaan waxaa xusid mudan in la ogaado xaqiiqada dhabta ah ee ku wajahan sababta keentay in internetka Somaliland oo leh baddaasi dheer uu Djibouti uga yimaado isla markaasina daafta u soo maro iyo waxa ka dambeeya amaba sababay in Somaliland iyo Djibouti warqado u qoraan dunida si aan berbera internet loo keenin Hargeysa ayaanu ku soo laabanay waxaanu raadinay Dr. Axmed Xaashi Nuur oo ahaa isagu mas'uulkii warqadda Djibouti xigatay ee sababtay in laga hor istaago Dalcom isgaarsiintii netka ay berbera keeni lahayd Axmed Xaashi oday waxaad ahayd wasiirkii boosaha iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Axmed Siilaayo waxaa jiray heshiis xukuumadda Daahir Riyaale la gashay shirkaddii isgaarsiinta internetka ee Dalcom heshiiskaasi wuxuu ahaa in Somaliland la keeno adeega internetka fiber optic berbera ayaana qorshuhu ahaa in la keeno oo berbera noqoto stationka bariga Afrika internet sidoo kale Axmed Xaashi waxaa qorshaha shirkadaasi sida heshiiskeeda ku qornayd oo dabcan adiguba hayso uu ahaa in berbera noqoto hoyga tiknoolajiyadda ee mantaqada heshiiskaas waa diideen maxaad ku diideen ama kaga hortimaadeen waxaa ka mid ahaa runtii horta aniga iyadana saa iga horreysay oo liisan yaroo temporary la siiyay oo haystaan meesha taagan oo liisigana u dhacay waxaa ka mid ah shirkadda waxa ku qoraa 5 nin baa lahaa shirkadda 5 nin innaga haddaynu reer Somaliland nahay isku wada darba ilaa la saacanood ilaa iyo saylaco nin bay naga jiray dukumentkeediina waan hayaa de markaa taasaa qodobada waxaa ka mid ah dee wax shirkadda inagu aynu leenahay baan ahaynba marka horeba Axmed tiknoolajiyaddu hayb abtirsiimo iyo qabiil ay ku abtirsato midna ma laha sidoo kale saldhigga ugu weyn ee shirkadaasi waxa uu noqon lahaa magaalada berbera taas beddelkeeda shirkadda Dalcom waxaa waraaqihii Daahir Riyaale ogolaanshaha ku siiyay ku qornayd Somaliland Dalcom waa maxay sababta aad ku diideen bal bulshada u caday message inay Somaliland Dalcom ku qornayd ما Somaliland dalka kuma qoran Somaliland dalka ma qoran Somaliland ma
aan ka imaado xadhiggii shirkadda Somcable ee aad kootada ugu xidheen wuxuu ahaa inay berbere ka soo jiito iminka Axmed Jabuuti ayaa laga keenay maxaa isbedelay maya ma hayn kuma qoray sharcigu berbere laga soo jiido wuxuu ku qoray in badda Jabuuti laga soo jiido oo berbere yimaado maamkii aan waan hayay ilaa hadda wali maamkeedii Jabuuti markaa berbere waxa kan ka soo galo ka Jabuuti keed markuu saylac joogan xagga Itoobiya oo qabto kan berbere markaa inuu si socdo Indian shaqaalaha ka raaco ilaa koonfurta saasa ku qoray laakiin inuu berbere toos kaliya uga yimaada ma ku jirin waxaa igu maqaal ah in saamilaydi reer Somaliland shirkadda Delcom ku timi oo ay ka codsadeen Axmed Xaashi Oday inaanad mustaqbalka berbera meel kale u loogin toodana aan dhaafinin yaa ku yimi message taynay ku yimaadeen labeena ma yimid labadeena ma saaxiib oo reer Somaliland waxa la igu yidheen waxa soo nahay caynkaas oo waliba niman aad saaxiibnay maalintii leeyay macaawiyo ardaas jirto waxaan ku waqtiisii marka waa baanay marka ninka igala hadlay la waxban ku lahaa liiska ka waay maalinta man sarna Axmed oo rano waxba kuma yeelan baan ku meesha marka isagu si khalad aan basoo doonoo fahmay muddo badan ma naawad hadal qoladii kale ka dambeysana anoo taa hore qaba bay yimaadeen inaan aad saaxiibno kamidi wuxuu ugu Axmed markii dambe uu sacafanay wuxuu Axmed oo maalinta waji xun baad ugu egtay buu yiri waa runtaa baan ku dhaana waa ka marxaati furay ma garatay marka runtii aniga labada qof ee yimidna saddex qof ee iga yimidna waxaan ku qancay inaanay ku jirin horta meesha liiskii hatta haday ku jiraan dee ma oran kareen midkiin ma oran kareen maadaama oo xukuumadii daahiriyaal shirkadii Delcom kooto ugu xidhin adeega internetka maxay idinku kalifay inaad adeega internetka oo dad tiro koobaniba heli karaan ama awood u heli karaan isgaarsiinta inaad 25 sanadood kooto ugu xidhaan internetkii ka Axmed Xaanse kootada fikir noocee ayaad adigu ka aaminsan tahay يارد قطار أنا ما نجيب مقبول يعني هاوش أنا دمعته ليش يو هاوش سعته أيام أنا هرتك عليك كمان أنا بدنا كمان نصير هاي إنه يلا أنا شقة بلعبنا وقتي اللوح حلو أنا واتاج السنة إما كذا ما تاج السنة si ay u fahmaan shacabku qiimaha ay leedahay sarreynta sharciga iyo waxa dastuurku u yahay heshiis bulsho intaynaan halkaa ka gudbin kooto ma xalaal baa sharciyan qof iyo qaran iyo mayse dan u tahay sharciga iyo qof kase keebaa sarreeya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xeerka ama heshiiska dadka reer Soomaaliland samaysteen ee ku asteeyeen sida uu noqonayo mabaadi'da ku shaqeynayaan dal ahaan guud ahaan haday tahay siyaasad dhaqaale sharci cadaalad iyo difaac iyo nabadba wuxuu sheegayaa in dhaqaalaha dalku uu ku saleysan yahay mabaadi'da suuqa xorta wuxuuna waajib ka dhigayaa dawladda Soomaaliland inay dejiso siyaasado iyo hanaano mar walba lagu hubinayo in suuqu noocu doonaba noqday uu ahaado xor waxaana fiis leeyahay free trade oo ah in tartan wax la yiraahdo jiro suuqa xorta wax lagu cabiraa inuu jiro oo xudun iyo bartilmaameed u yahay tartankuna uu ka dhaxeeyo cid wada qabanaysa adeeg ama shaqo ama hawl ganacsi ama wax soo saar ganacsi oo isku mid ah qabanaysa inta ka dhaxeeyo ayuu doonay sababaha taa loo sameynayana waxay tahay in laga cararo sida dastuurka ku qoran in dhaqaaluhu noqdo yahayntu mid ku ururta gacmaha dad yar oo ay tanaado oo dabeedna uu abuurmo kala fogaansho bulshada u dhaxaysa oo abuurto in yar oo taajirto tanaada iyo dadka intiisa badan oo ku noolaata nolol liidata oo aan dhaqaalahayn aan lahayn waxaana la tijaabiyey boqolaal sano oo dunidu maanta shaqaynaysay in dhaqaalaha ku salaysan monopoly ama in qof koox loo xiro hal ganacsi oo nooc doonaba ha ahaadee inuu keeno burbur dhaqaale inuu keeno waqtiga dheer una sidoo kale abuuro wax loo yaqaan cadaalad darro bulsho oo bulshadu bilowdo inay u aragto in qof dhiig miiranayo dadna ugu dambeynta iska hor keento bulshada iyo dawladnimada laftigeeda iska hor keento oo kacdoonada dhaca qaarkood waxa dhala cadaalad darro dadku xagga dhaqaalaha ay ka dareemaan markaasi waxyaabahaas oo dhan looga hortago nidaamkeena dawliga wax ku salaysan soo qaata haddii tusaale ahaan qof loo xidho adeeg waxa qofkaasi uu bilaabayaa kow inuu dadka ku qaaligareeyo adeeg wuxuu og yahay in aan cid kale oo qofkii ka doonanaya aanay jirin ku qasban yahay mar walba inuu adeeg ka soo doonto marka labaad tayadii waa xumaanaysa oo qofkii xil iskama saarayo lacagtiisa ma gelinayo soo tayadiisa kor ugu qaado sababtoo ka tayada xun baa qofku ku qasban yahay inuu isticmaalo
haddaad eegtid sanadooyin ka hor habkeena isgaarsiineed isbedelka lixaad kale ku yimi wuxuu ku yiminayay mar walba tartanka ka dhexeeya shirkadaha oo shirkad waliba sida iyadu dadka u soo jiidato in tayada telefoonka lagu hadlayo mobilka lagu hadlayo noociisa ay kor u qaadaa si qofku ugu xidhnaado ilaa ay gaadhay in mobilkii noqdo midaad xitaa lacag ka isticmaali kartid oo kuu fududaado adduunyadaada oo dhan kusoo koobo hindisahaas ama innovationkaasi ma yimaadeen haddaan suuqu xor ahayn oo la tartamayn jaaniskaasi koowaad waxaa jabuuti ku guulaysatay inay hantido fursaddii berbera ka dhigi lahayd aqalka ICT-ga geeska Afrika. Somalilandna ciddii la imaan lahayd waa siyaasiyiintii talada haysay. Hirgelinta siyaasad dalku ku hogaamiyo adeegga internetka ee bariga Afrika waxay qayb ka noqdeen hirgelinta hamiga dalka Jabuuti dadaarka dheer ku bixiyay sidii ay iyagu u liidgarayn lahaayeen tiknoolajiyadda gobolka. waxaana taasi keentay stationkii berbere bariga Afrika waraabin lahaa internetka in lagu beddesho qol yar oo Somaliland loogu dhex sameeyay xarunta Jabuuti internetka ka siiso dalalka aan badda lahayn. Wasiir Axmed Xaashi waxa uu waqtigaasi la geeyay Jabuuti wuxuu soo arkay qolka yar wuxuu ku doodayaa in Jabuuti kaliya ka faa'iideyso internetkaas cashuur Jabuuti na waa la geeyay markaan waan tagay saldhig ay Jabuuti leedahay Jabuuti waxa jira waxay ku shaqaystaa dhimar telecommunication income-keedu Jabuuti waxa la geeyay guri kan oo kala leeg oo qolo walba meesheedu ku xiran tahay Ethiopia ugu xiran tahay Afrikada kale oo ugu soo xiran tahay Suudaan ugu soo xiran tahay yani mid walba khadka uu leeyahay ayaa loo qolka aniga waxa la samid banaan maaga soo xol ugu xiran oo waa kan waa kii Somaliland iyo fiber optic-goodu وكي دقائقي مركا يدو عشور بقادة جيبوتي جيبوتي عشور تسيدون لسا لكن وحن انترفيشنوها أي كل يضحي مجربة اللي يقول مالتان وانتقي ها runta aynu ku soo dhawaan Jabuuti adigoo wasiir reer Somaliland ayaa loo arkaa inaad toos u hiilisay waqtiga inay xaq berberi lahayd Jabuuti qaadato waxaa jirtay warqad aad qortay oo Jabuutina isortaagii Telcom iyo dacwad ay wada galeen ay adeegsatay warqadda waxaad u dirtay oo ku socodsiisay shirkadda xarkaha ACE isla warqadda xaqa shirkadda Telcom lagu duudsiyay waxaad kale ku socodsiisay Jabuuti Axmed warqadda shirkadda adu markay Telcom baatay hay u dheerantay su'aalaha ka badan deegada ma runta ayaa may waxaas waa internal nidaam wasaareed baa ka police take out intaadeenan sidaan moodayay badeegu yar noqon weydaniyo may waa warkii imka waxaan say cajalada ka masax waxaan cajalada kaaga masaxaa si aan bulshada meeshan adigu warsanaysaa waxa weeye waa si yar hoos oo personal interest adigu warsanaysaa anaga dan qaran baad moodayay adigu warsanaysaa Axmed dan qaran maxaad u taqaan warqadaan teeloo qornay TV-da lagu warqad maxay kaaga ku gubaysaa waqtigeedu u dhamaaday dawladeedu way dhamaaday hadda xafiiskayga laga xaday anigu markii ma jeclay hore la xaday laakiin markii dambe waxay noqotay in ummadda ogaato si aynu barnaamijkeena baarista u sii wadano intaynaan u gudbin shakhsiyaadka kale ee xogahani khuseeyaan ama aynu wax ka weydiin doono baaritaanka barnaamijkan shirkadda Telcom oo sida idiin muuqata ay shareholders ka ahaayeen ugu yaraan 3 qof oo reer Somaliland ah Maxamed Axmed Jaamac waxa uu ka soo jeedaa isagu Soomaaliya Garowe ama Muqdisho kay doontaba ha ahaatee shirkadaas waxyaabaha xukuumadda Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Siinaay oo cuskatay waxay ahayd inay tahay shirkad ajaaniba hadiiba tiknoolajiyada ama isgaarsiintu ay tahay hayb iyo qabiil ayaa waxa isweydiin mudan sababta shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo leeyahay hal qof oo Somaliland u dhashay ay uga hawl gasho ama taawarada iyo isgaarsiinta internetka iyo telefoonada ay ugu gudbisay Garowe Gaalkacyo Jubbooyinka ilaa iyo Muqdisho tiknoolajiyadu iyo maalgelinteedu midab ma laha qabiil ma laha diin ma laha jinsiyad ay ku abtirsato oo leeyahay jinsiyadaas ay ku abtirsataa ma jirto laakiin waxa ilaa hadda la garan waayay madaxdii u dhalatay
inay garan waayeen muhiimadda dhaqaale, midda istaraatiijiyad, midda siyaasadeed iyo midda bulsho oo ay leedahay inay Berbera noqoto meel infrastructure-ka ICT-du uu ka hana qaado. dadweynaha xogahani ka daahan yihiin laftoodu wax sawirah kama haystaan tiknoolajiyadda, waana sababta iyana sii sahashay in lagu qanciyo shirkad hebla Somaliland lagama laha ama waxaa ku jira qof dhashay magaalooyinka Garowe iyo Muqdisho. sidaasi darteedna shirkadda Djibouti Telecom Somaliland ku keentay internetkaasi iyagoo isticmaalaya magaca Sam Cable oo bulshadu aaminsan yihiin inuu mulkiyadeeda leeyahay hal ganacsade oo Somaliland ka soo jeeda dhalasho ah. taasi waa waxa loogu yeedhayaynu oran karnaa kofarne. hase ahaatee kolkaad ka timaado siyaasiyiinta Somaliland ee Djibouti qaybta kala qaatay fududaynta hawshaasi iyo ganacsatada laftoodu weerka u xidhay, waxaa meesha ka saaraysa tani waa caddaymaha lahaanshaha internetka Somaliland u qabto in dalka laga leeyahay. waxaad booqataa bogga shirkadda Djibouti Telecom, halkan akhri Djibouti waxay internetka u sii gudbisay Somaliland iyo Ethiopia. iyada lafteeda ayaana maalgelisay labadaasi mashruuc oo ay Djibouti ugu kala magac dartay Djibouti Ethiopia iyo Djibouti Somaliland. kadib kolkii isku daygaasi lagu guuldaraystay in Berbera laga hirgeliyo, shacabka Somaliland ay weli ka cagacad yihiin helidda internet noloshooda wax ka bedela. waxaa sii xoogaysatay baahida internetka fiber optiga dalku u qabo, waxaana xadhigii Djibouti si toos ah qayb uga noqday suuqii qaaliga iyo awood yarida ahaa ee internetka. mar kale ayaa waxaa bariga dhexe ka onkoday fursaddii labaad ee Somaliland ku heli lahayd adeega fiber optiga oo isagu isku xidhaya bariga dhexe iyo Afrika. waxaa curatay niyaayiradii Berbera kaga soo kaban lahayd hantaaqadaasi hore. dabayaaqadii sanadkii 2015 ayaa waxaa Somaliland heshay fursadda ah in adeega casriga ee fiber optiga xadhig caalami toos Berbera u yimaado. dalka Cumaan wuxuu ka mid yahay dalalka xadhkaha ugu badan ee fiber optigu ay maraan. shirkadda isgaadhsiinta sandalada Cumaan ee magaceeda loo soo gaabsho Cumaantel iyo shirkadda isgaadhsiinta Somaliland ugu tunka weyn ee Telesom ayaa galay heshiis ka dhigaya bahwada. Cumaantel waxay ku dhawaaqday inay dhisayso khadka fiber optiga ee badda hoos mara, kaasi oo isku xidhaya adduunka intiisa kale iyo Somaliland, isla markaasina loo sii gudbin doono ku talagalka dalalka aan badda lahayn ee ay ka mid tahay Ethiopia. waxaa si rasmi ah shirkadda Telesom u gashay heshiiskaasi. mashruucaasi oo la yiraahdo The Gulf to Africa G2A ayaa ah kan isku xidhaya bariga dhexe, Afrika iyo caalamka intiisa kale, iyadoo laga ambaqaadayo baahiyaha qaaradda Afrika ee internet xawaarihiisu sareeyo. Telesom waxay ogolaansho ka heshay waqtigaasi xukuumadda Somaliland, kaasi oo ay ku hawlgashay. sanadkii 2016 waxaa bilaabmay sahankii xadhigaasi Berbera lagu soo gaarsiin lahaa, oo muddo 6 bilood ah khuburada dunida u qaabilsan dhigista xadhkaha badda hoos mara ay ka shaqaynayeen qorshaha dhigista xadhigaasi, dhinacyada ilaalinta ammaankiisa, xanantirka dariiqa badda hoosteeda ee uu Berbera u soo mari doono, iyo waafajinta navigation-ka ama shuruucda badaha. waxaa kaloo la gudagalay dhismihii stationka xadhigaasi ee Berbera, waxaana soo dhammaaday sahamintii. magaalada Berberana waxaa soo gaadhay maraakiibtii caalamiga ahayd ee shaqadaasi fulinaysay, halka markabkii xadhigaasi dhigayena uu soo dhex jibaaxayay badweynta. mar kale waxaa aloosmay dagaalkii ka dhanka ahaa siyaasadda iyo dhaqaalaha Somaliland, waxaana wejigani midkaasi hore kaga gadisan yahay.
mashruucan xukuumaddii fasaxday ayaa u tafaxaydatay isna joojintiisa. aad ayaad u mahadsan tahay wasiir walow ay kaa horeeyeen xadhko hore oo wasiirada aad ka mid tahay 27-ka ee soo maray wasaaradda la hor istaagay waxaa jirtay waqtigaa xadhigga G2A oo uu berbera yimi maraakiibtii timi shaqadii ay socoto xadhiggaas oo shirkaddan isgaarsiinta Telesom waday wasiir shaqadii iyo maraakiibtu wado ayaa waxaa xilka hal mar laga wada qaaday adigoo ahaa wasiirkii boosaha iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal iyo taliyihii ciidanka ilaalada xeebaha xaqiiqatan dadku waxay ka dheregsanayeen arrintaas ku wajahnayd G2A iyo qaababkii loo joojinayay inaan soconin bal ku soo dhawow sababta ma jirtay wada hadal in ka horeeyay xilka qaadistaadii oo ku saabsanaa madaxweynaha iyo adiga idin dhexmaro markuu yimi markabkii berbere soo gaaray dabcan sidoo nidaamku hadda dekadii buu la soo xiriiray ilaa waa markaba meeshu soo taagay dabeedna qoladii dekada ayaa waxay yidhahdeen dee hawshaas aan qabanayna buu markabkii waraaqdeediina uu sitaa waa tu sharciya dabeedna waa shaqadoodii way bilaabeen madaxweynuhu wuxuu yidhi hawshaasi hadda joojiyo ka noqo dee maanta ereyadaan kaga noqon lahaa garan maayo marka adaa iga sarreeya madaxweyne adu warqadda ka noqo dabcan dee markaa waa arrin fulaya dee madaxweynuhu ku adkayso wuxuu waad ka noqonaysaa weliba siisii baad imika warqadayso kowdii duhurnimo ay runtahay warqaddaa aad qorto waxaad soo siinaysaa siisii baad soo siinaysaa markabka waad u qoraysaa shaqada isna imika waa la joojiyaa mar labaad baan ku celiyey madaxweyne malaha adaa igaagaga habboon hawshaas way yani erayadan ku qori lahaa maanta madaxweyne waygu culus tahay sharafta qaranka iyo tayada midnaba istaayil malaa kuma aha may wad ka noqonaysaa buuri halkaa markay marayso dee amarkii madaxweynaha yaa meesha yaal soo ma anna dee waxbaan ilaashanayaa dee dalka iyo waxaan sii dee malaha maamul ahaan arrinkaasi de waa yara foorxun yahay markaa go-aankaygii wuxuu noqday inaanan anigu ka noqon inaan anigu ka noqon waan ku adkaystay dabeedna madaxweyne laakiin kumaanan hortiisa maya madaxweyne maanan waan ka soo baxay laakiin waxaa shaqadii hawsha waxaan ka qabtay may jirin saddex casho markay taagneed runtii markabkiina joogo ku shaqaynayaa marka shaqadii wado ayaa madaxweynaha iyo wasiirkii madaxtooyada iyo Telesom iyo yaa dee arrinka ka wada hadlayay taa wada hadal baa socday yaa waxaa la go'aamiyey in shaqadii sidii ku socoto saddex cishana waa shaqaynayay in shaqadii sidii lagu dhameeyo madaxweyne baa go'aamiyay dadkii dee salaadeen iyo shaqada la wada hayay anigu markaa kuma jirin laakiin way dib uga soo noqon ismaana naarig dabeedna taa markii la go'aamiyey caawa 12kiina anaa xilkii laga qaaday waa sida dhabta wax u dhaceen wey dabcan xadhiggan fiber optica meel dhow dee halkan loo yacdo wadada ah Djibouti buu inaga soo galaa sidaad sheegaysa dee berberena waynu leenahayoo dawaa dekedeennii weli kamayna faa'iidaysan runtii manuu iman waana wax inaga dhiman yani kumana faraxsana anugu inaynu ilaa imika aynaan adeer waxaynu haysanay inaan ka faa'iidaysan weli kuma faraxsana runtii haddaba si aan wax uga ogaano xadhigga kale ee G2A oo isaguna saqiiray kadib markaan muddo raadinaynay madaxda shirkadda Telesom cid aan wax ka weydiino sababaha G2A u qaaday toobiyii qabuuraha xadhkaha fiber optica waxaa noo suurta gashay inaanu helo injineer Siciid Xuseen Guuleed oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom ahaana madaxa xadhkaha badda ee shirkadda Telesom oo hogaaminaya ka dhowra oo G2A ka mid yahay hore injineer Siciid ku soo dhawow barnaamijka Baadigood aan ku bilaabnay sharaxaad kooban wax naga siisaa mashruuca G2A cabdirasaaq G2A wuxuu ahaa mashruuc marka la soo gaabiyo xurufta G2A mashruuc xadhiggan badda ee internetka qaada oo ka imanayay
waddanka Cumaan dabadeetna ka degayay berbera Gulf to Africa ayaa loo soo gaabiyay xuruftan G2A mashruucaasi oo mashruuc weyn oo horumarineed ahaa waxa uu ay shirkadu ay wada hadalkiisa gashay muddo dheer ka hor hase yeeshee MOU-dii ama isfahamkii horreeya waxa saxday 2015 marka G2A shirkadaha ku jiray waxa kamid ahay Telesom waxa kamid ahay Cumaantel oo Cumaan laga leeyahay Golis oo Puntland Boosas Soomaaliya laga leeyahay waxa kaloo heshiiska kamid ahaa Ethiopia Telecom oo heshiiska qaybta ay ka saxday waxa la yiraahdo subject for approval يعني إني قلوا ذو وزير هذا خردقان أي كحنا إني كقيب هذا لكن مبدئيا حرقة وي كقيب هذا يعني ودي 40 وحنا إنك كقيب قاتان لعق ملايين دولار 40 مليون دولار كله واقع بهذا حرقة وحوسدي ويران 20 ترابايت 20 ترابايت سومال لان كليجت أي قرشوها يعني 10 ترابايت كسود دجان dan siyaro food 10 terabyte ku qiyaasay waxa weeyaan Kenya oo terabytes badan yaalaan wadanka dhan wax 1 terabyte ayuu isticmaalaa marka berbera 10 terabyte la keeno wad fahmi karaysaa marka G2A sidaas waxa taariikh ahaan maapka maartay xarkaha dunida ku jira waqti bal tinaan gudbinin muxuu faa'iido u soo kordhinay wadanaha Soomaaliland xariga G2A after wada socota media ku jirtaan internet laan waxay ma shaqeynayaan nolosheena hadday telefoon tahay hadday tahay email la diro hadday tahay social media oo dadku ay inta badan entertainment iyo aqoon koros iyo waxyaalo isticmaalaan hadday ganacsi tahay hadday dawlad iyo xiriir maaragtay siyaasadeed iyo mid ganacsi iyo mid humanitarian iyo waxa socdo dhan internet bay isticmaalaan marka G2A waxyaalaha uu ka doonaa wax kasta oo macno weyn ku lahaa number 1 capacity aad weyn baan wadanka keenaynay talabaad waxa weeyaan xarig xor ah oo independent ah oo maaragtay aan consortium wax la yiraahdo lagu dhisay ayuu ahaa oo maartay marka wadanka dib wuxuu soo kordhinayay shaqo abuur buu soo kordhinayay wuxuu soo kordhinayay dhalinyarada iyo dadka technology ka shaqeysta inay innovations fara badan sameeyaan internet high speed helaan waxyaalo fara badan buu ayuu wadanka uu soo kordhinayay su'aasha saddexaad xarigii G2A xagee ugu dambeysay G2A nasiib darro uu ka soo degi karo waa Soomaaliland waxay ahayd inuu dhamaadkii sanadkii hore uu berbera soo gaaro hase yeeshee arrin la xiriidha maartay xukuumadda iyo ogolaanshiyaha daraadeed xarigaasi waxaan ku joojinay territorial waterska Soomaaliland xadka badda ee Soomaaliland markuu marayo ayaan xariga halkaa ku joojinay ku goynay marka waa yandor laakiin waa maartay muu xarigaas muu shaqeynay طبعا عقبات بدن بدين كهريمي عقباتها حرقيني وحنبيه هاي سو kale boosaaso aan tagnay oo toos uga shaqeynayo internet xawaare sare iska tagol sii deysay kiinina uu xaniban yahay oo hirgelin madad berbera ka hirgeli way xagaa geyn doontaa sidii shirkadii dalkan baa xamar geyn doonta shirkadda Telesom shirkadda Soomaaliland laga leeyahay oo ka diiwaan gashan Soomaaliland xuduudeeda meel nooma dhaafto intaas ka shaqeysta marka meel aan geenina haduu Soomaaliland ka soo deg waayay berbera meel aan geenina oo aan ku sheegi karaa ma jirto waxyaalo kale oo diidayaan oo jiraan oo dhinaca design-ka iyo farsamo ahaan in xarigii maartay meel kale loo duwo waa ma hawl yara ma og
ogtahay in kootada shirkadda Sam Cable aanay ku cadayn waraaqdii madaxweyne Siilaan iyo shirkadaasi ugu ogolaaday xariga badda hoos mara ee fiber optiga oo ah tan halkan adinka muuqata ma ogtahay in xeer number 50 oo ah xeerkii isgaarsiinta Soomaaliland ee 2011 in aanay meel laba kaga oolin wax koota ah oo Sam Cable loo xidhay sida mar kale ku cad waraaqda madaxweynaha wuxuu bixiyay ogolaansho xariga badda ah waxa isweydiintu tahay Sam Cable ma xarig badeed ayay keentay mise xarig berri oo Soomaaliland waa landlocked sidee bay ku dhacday in xariga badda loo xidho muddo 25 sanadood ah iyadoo waxa kaliya ilaa maanta ay ka ganacsata shirkadaasi yahay xariga berriga isla markaasina shirkadihii kale ee berbera dunida ka dabageyn lahaa xarkahoodii sabab lii ugu xabaalan yihiin biyaha hoostooda waxa aan xaqiijinay in dhammaanba shirkadaha wadanka iyo gabi ahaanba cidda kaliya ee wadanka Soomaaliland dunida ku xidhaa inay tahay shirkadda Djibouti oo leh in ka badan 7 xarig badeed haddii hal mar uu istaago xidhiidhka Soomaaliland iyo Djibouti ama uu xumaado dhammaan shirkadaha wadanka ka hawlgala sida Telesom, Somtel iyo Sam Cable waxay ku xidhan yihiin ama adeegyadooda telefoon iyo internet u mara waa Djibouti suurtagal ma tahay in Soomaaliland ay hal mar hawada ka baxdo miyaanay xaqiiqo aan la iska idhatiri karin ahayn inay biyo kama dhibcaan tahay in hal mar dhammaan ganacsiga Soomaaliland amniga dalka waxbarashada xiriirka dunida iyo wax kasta oo dunida isku xidhaaba uu hal mar istaago aan dibadin xasuusiye waxa aan fogeyn markii sanadkii hore dalka Soomaaliya xariga taga ee iisay uu jaray markabku waxa xamuulka qaada muddo 3 toddobaad ah ayay Soomaaliya hawada ka maqnay waa 12 maalmood maxaa dhacay dharaarahaasi oo go'ida xarigaasi sababay waxaa ka qaxay dhammaanba dadkii hay'adaha samafalka ka shaqeynayay kuwii ammaanka xawaaladihii ayaa istaagay bangiyadii baa qafilka loo taagay shirkadihii diyaaradaha allow sahal galay ganacsatadii waaweyneed ee hantidooda dunida iyo dalka u kala gooshisay ayaa daaqad walba uga soo galay Hargeysa ayay u soo qaxeen barkoodna Kenya waxaa xidhiidhku u go'ay xataa madaxtooyada looga taliyo dalka Soomaaliya ee fiila Soomaaliya khasaaraha xarigaasi dalka Soomaaliya ee maalinlaha ahaa 3 toddobaad waxaa lagu qiyaasay inay maalintiiba 10 milyan Soomaaliya khasaartay maxaad fili kartaa haddii Soomaaliland hal mar hawada ka baxdo shirkadda maalgelinta dekadda berbera ku hawlan ee DP World ganacsigeedu inuu ku tiirsan yahay khadka internetka oo uu Djibouti maro iyana ma ogtahay imisa sanadood ayay suurtagal tahay inay Soomaaliland hawada ku soo noqoto ama hesho khad kale oo dunida ku xidha halka ugu dhowse ma ogtahay ay khad ka heli kartaa Soomaaliland hadiiba masiibadaasi haleesho inay tahay Boosaaso iyo Muqdisho waxaa xusid mudan in halista kaliya ee ay leedahay ku xidhnaanshaha hal meel aanay ahayn in hawada laga saaro dalka total outage or blackout laakiin waxa taasi ka halis badan inay tahay dhammaanba isticmaalka xidhiidhka isgaarsiinta ee dalka ee ay sameeyaan ama adeegsadaan shakhsiyaadka shirkadaha ganacsatada siyaasiyiinta iyo madaxda oo uu xataa ku jiro madaxweynaha dalku inuu maro wadan kale taasi oo ay suurtagal tahay inay xidhiidhkaasi loo adeegsado qalabka lagula socdo laguna samayn karo eavesdropping isla markaasina aanay jirin cid ka badbaadi karta madaxweyne ilaa shacab xarkaha G2A iyo EC haddii ay maanta shaqaynayaan dakhli intee leeg ayaa ka soo geli lahaa Soomaaliland maxaa dalka kaga baaqatay dakhli cashuureed horumar nololeed shaqo abuur hal abuur hindisayaal iyo hodantinimo u xilashade in badan oo adinka mid ah waxa laga yaabaa inay aad uga xumaadaan ama aad dibsataan in dad muwaadiniin ah ay lacag malaayiin ku khasaaraan oo xarkahoodu badda ku xabaalan yihiin ama hantidoodu xeebta berberi aasto laakiin waxa ka sii xuntaasi oo aanad ogeyn boqolaalka milyan ee dollar ee lagu maalgelin lahaa Soomaaliland ee iyagu ka baaqdo waxa taasi ka sii daran maaha xarkaha ka baaqday berbera iyo G2A hase ahaatee waxa jira tobaneeyo xarig fiber optic oo iyaguna qufulka berbera ku jabsan ay uga dhigan tahay weysha gowrac dib uga ku quuste waxa ka mid ah xarkahaasi berbera aan indhaha siin karin ama soo haweysan karin xariga daar
Djibouti Africa Regional Express wuxuu u sii gudbayaa qaaradda Yurub xadhigga daar oo isku xidhaya Djibouti ilaa Tansaaniya oo mari doona Muqdisho hase yeeshee shirkadaha wadaniga ahi ay ka maageen inay maalgashadaan taasoo sababtu tahay berbera haddii aad ku ogeyd qabrigii jacaylka waxay noqotay qabuurihii xadhkaha internetka iyo maalgashiga waxaa ka mid ah xadhkahaasi isaguna xadhigga Africa One oo ay ku jiraan wadamo badan iyo shirkado waaweyn oo caalamiya sida Saudi Telecom, Egypt Telecom iyo kuwa kale wuxuu ka degayaa Muqdisho berberana indhaha oo ay siiyaan iska daaya uma soo hanqal taagi doonaan waxaa ka mid ah xadhigga BIS oo ay dabada ka riixayaan dawladda China oo ku xiriirsan project ama mashruuca loo yaqaan Silk Road wuxuu ka degayaa Djibouti dekada yar ee Hobyo tan Kismaayo Muqdisho iyo Mombasa Kenya sidoo kale berbera isna nafsada ma siin karayaan waxaa ka mid ah xadhigga Mercury oo shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay Cumaanta Itisaalaad iyo kuwa kale ay ka leexdeen berbera sida idin muuqata waxaanu tagnay berbera oo aanu booqanay labada station ee G2A iyo EC oo aad aragtaan inay haawanayaan waxaanu kaloo noo suurta gashay inaanu tagno Boosaaso iyo Garowe soona aragno xadhigga magaalada Boosaaso ee fiber optic ah xeebaha gobolka berbera qatan berbera waxay u muuqataa inay u baxayso heestii ahayd dadkii maaniga ka hadhay ragii maaniga ka hadhay runtii maaniga ka baqay ragii maaniga ka hadhay runtii maaniga ka baqay